السلام عليكم أصحابتنا qiimaha badan maanta waxaan idin wadnaa dhacdo la yaab badan horta like iyo subscribe tan ugu kaalmeeyo intaan muuqaalkeena u gudgelin nagu dhiirigeliya inaan muuqaal kale oo cajiib idiin soo gudbino 40 sano oo xirnaa kadib waxaa cadaatay inuusan wax dambi lahayn isagoona ku xukunaa xabsi daa'in balse muxuu ahaa wixii la yaabka badnaa ee uu ka codsaday maxkamaddii waa Kuwabi Jambo waxaa la xiray isaga oo 17 sano jir ah waxaana lagu eedeeyay in uu geystay dil wuxuuna xabsi ku qaatay noloshiisa badankeed kadib markii uu 40 sano xirnaa waxaa dib loo eegay kiiskiisii balse waxaa cadaatay inuusan wax dambi lahayn waxaana xabsiga laga soo daayay isaga oo 57 jir ah markii la gelinayay xabsigana waxa uu ahaa 17 sano jir cimrigiisa waxaa ka khasaaray 40 sano isagoona wax dambi geysanin subhanallah kadib markii la xaqiijiyay siideentiisii ayaa garsoorkii maxkamadda Shatt Bekat uu ka dalbaday Kuwabi inuu wax ka codsado maxkamadda codsigaas oo 40 sano uu xirnaa u dhigmi kara balse codsigii la yaabka badnaa ee ay dadkii oo dhan la yaabeen ayaa noqday kadib markii uu maxkamaddii ka codsaday isagoo ilmeynaya kaliya in dib loo eego qaanuunkii sharci darrada ahaa ee u sababay inuu 40 sano xorriyadiisa waayo isagoona wax dambi geysanin عجيب ما uusan ka dalbanin maal uu ku sii raaxaysto noloshiisa inta uu waarsan oo isku hilmaamsiyo dhibaatadii uu soo maray waqtigaas ayaa garsoorada Mila Maker uga soo degtay mimbarkeedii ay saarneed si ay hab u siiso Kuwabi Jambo kadib markii la gabagabeeyay kiiskii ayaa aqalka cad amar ka soo baxay kaasoo lagu magacaabayo gudi dib u eegis ku sameeyay qaanuunkii sharci darrada ahaa ee uu Kuwabi xorriyadiisa iyo mustaqbalkiisa ku waayay ma uusan u dhamaan asbuuci koowaad kadib markii uu la yaabay madaxweynihii xilligaas dalka Mareykanka Barack Obama kaasoo isaga iyo qoyskiisa iyo marwadii koowaad ee wadanka ay ku booqdeen xaafadiisa oo ayna kula soo casheeyeen Kuwabi Jambo